السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، إلهي baan ku xamdinaynaa mar hore iyo mar dambaba. qur-aanka suuradda ugu weyn waa suuratu lfaatixa. bacda albasmala iyaduna waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin. aadam calayhi salaam markii lagu afuufay ruuxda, dhawaqii u horreeya nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa u hindhisooday. deedna markaasuu yidhi alxamdu lilaah. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan waxay odhan doonaan waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أهل النار والعياذ بالله أيكنا بنك قيامة مركا لغا dhaqaajiyo xagga naarta loo dhaqaajiyo, ayaka laftigoogu waxay ku mahadnaqi doonaan ilaahay cadligiisa. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. labada qolada jannada loo dhaqaajiyey iyo kuwa naarta xaggeeda loo qaaday intuba waxay dhihi doonaan baa ilaahay yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. dadka jannada xaggooda loo qaaday fadliga ilaahay bay ayay ku xamdinayaan, ilaaha u naxariistee jannadii ku deeqay. amaa qofka ahla naarka naar buuba u socdaaye muxuu ku xamdinayaa isagu? waxaa la yidhi isaguna wuxuu ku xamdin doonaa ilaahay cadligiisa. marka inakuna ilaahay mar walba inaan u mahadnaqno waa cibaado. afdalu dikri laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa alxamdu lilaah. xus ilaahay caza wajalla la xuso waxa ugu fadli badan kelmaddaas inaad ilaahay mar walba ku xustaa laa ilaaha ila allah. mahadnaq, duca ilaahay la baryo oo ilaahay la baryo wax la weydiisana waxa ugu fadli badan buu nebigu yidhi inaad tiraahdaa alxamdu lilaah. haddaad mar walba noqotaa addoon mahadnaqaya, nicmaduna way kuu ziyaadiya ogow. bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tasdaadu nicam. haddaan ilaahay u mahadnaqna mar walba, oon ilaahay mar walba carabkeenna ku hayno, nicmaddaan haysanna way noo daa'imaysaa. oo hadyigii nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah mar walba nebigu ilaahay buu u mahadnaqayey. hadduu cunno cuno alxamdu lilaahi aladii acamanii warasaqanii min gayri xawli minii walaa quwa buu odhan jiray. hadduu jiif ka soo kaco alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wacaafaanii fii jasadii waadina lii bidikrihi. hadduu maaragtaanay
uu maaragtaanay soo arka maaragtaanay hadduu baytalmeyg ama xaajo uu soo guto غفرانك أبو نبي أورنجري عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا قف دباتيسن أو مصيبة أي كل عضي أو ابتلوا به هذا نبي أركنا وحورنجري الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به على كثير من عباده وفضلني إلى آخر الحديث إلى ما ركتاني نعمة maaragtaanay balaayadaas iyo masiibada dadka badan ku dhacday aniga iga ilaaliyay ee khalqi fara badan uu sameeyayna iga fadlay ayaa mahadla uu nabigu oran jiray calayhi salaatu wasalaam. yadkurullah ilaahay buu nabigu xusu jiray mar walba laana dikriga ilaahay waa saddex qaybood dikru lqalbi iyo dikru ljawaarix iyo dikru llisaan. dikru llisaan waa kan carabka weeyaan markaad tidhahda subxaana allah carabkaad ilaahay caza wajalla ka xustay. markaad tidhahda alxamdu lilaah carabkaad ilaahay uga mahadnaqday. markaad tidhahda laa ilaaha ila allah carabkaagii baad ilaahay ku waxiday. markaad tidhahda allahu akbar carabkaagii baad ilaahay ku weynaysay. waa dikru llisaan. laa xawla walaa quwata ila billahi baa ka mid ah kanzu min kunuuzi aljanna waa kanzi jannada dhex yaalla buu nebigu yihi kelmaddaasi. ibraahim calayhi salaam ibraahim alkhaliil ayuu nebigeennu ku soo maray samada toddobaad korkeeda waxuu ihi ummaddaada salaanna iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arlada jannadu dhulkeedu waa dhul bannaan oo in la beertana maaragtaane ku fiican. dhirta jannada ku talana waxaa lagu beeranayaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar. haddaad iminka halkaas ka fadhiisato oo tidhaahdo subxaana allah garsun fi ljanna geed baa jannada lagaaga beerayaa. laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdid garsun fi ljanna wallaahu akbar markaad tidhaahdid garsun fi ljanna geed jannada ku yaalla buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. faraska fardaha ugu orod dheereeya ninka fuushanee wata harhkiisa dhammayni maaya buu nebigu yihi hadduu 100 sano uu hoos ordana. waa geed jannada ku yaalla oo lagu diyaariyey adiga ayuha almuumin oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir aad ku beeratay. wadillin mamduudin waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati alwaaqica. waa hadh la fidiyey weeyaan baa ilaahay yidhi jannada hadhkeeda iyo geedaheegu. faras la fuula faraska ugu orod dheereeya 100 sano ayuu hoos ordayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. mana dhammayn karaysaan buu nebigu yihi ka bixi kari maysaan. waxaana lagu beeranayaa waa tasbiixdaas. man salla lilaahi 12 rakcatan taطawucan غayra alfariida bana allaahu lahu beytan fi ljanna aw buniya lahu beytun fi ljanna. 12 rakcadood oo sunno ah qofka maalinkii tukada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aqal ayaa maaragtaana jannada looga dhisayaa. aqalka jannada lagaaga dhisay intuu la eg yahay ilaahay unbaa xajmigiisa iyo qiyaastiisa garan kara. 12 rakcadood buu nebigu sheegay. 12 rakcadood waa 2 rakcadood ee fajarka ka horaysa iyo 4 duhurka ka horaysa iyo 2 duhurka ka dambaysa iyo 2 maqribka ka dambaysa iyo 2 cishaa'iga ka dambaysa. 12 ka rakcadood qofka maalin walba laazima waa rawaatib ayaa la yidhaahdaa. ilaahay caza wajalla aqal buu jannada uga dhisaya. aqalka adduunyada aqalada adduunyada bini aadam baa dhisa injineer iyo cumaaliin baa ku dhisaysa. laakiin aqalka jannada muuminka ilaahay ugu diyaariyey ilaahay baa kuu diyaariyo wuxuu ku dhisay kun fayakuun. cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa yidhi qasri jannada ku yaalla ayaa jira qasr 500 oo albaab buu leeyahay oo laga galo. albaabka qofka muuminku uu ku hagaagaba waxaa u joogta buu 5,000 oo xuuralcayna. waa 2,500,000 oo kun oo xawraaya ayaa hal qasri oo jannada ku yaalla ku xeraysan. markaasuu cumar binu khadaab ayaa la weydiiye oo lagu yidhi qasrigaasi cumar alfaaruuqow ma nebiye unba heli doona? markaasuu yidhi cumar haa nebiyaduna way helayaan laakiin sidiiqiintuna way helayaan buu yidhi.
qasrigaasi waxaa loogu talagalay alambiya calayhim assalaam markaasuu nebiga qabrigiisii gacanta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha nabiy nebi maxamedow qasrigaa waan kuu haneeyey haddana abubakar qabrigiisii buu farta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha sidiiq qusuurta intaa leeg sidiiqiintuna way geli doonaan hanii'an laka ayuha shahiid wa annaa laka shahaadata yaa cumar markaasuu yidhi weliba qasriga kuwa shuhadada ee gacanta cadowga ku dhintay ilaahay dartii loo dilayna way heli doonaan laakiin cumarow adigu shahaado halkeed ka heli doontaa buu yidhi maalintaa intii ka dambaysay cumar binu khataab wuxuu bilaabay inuu ku ducaystu yidhaahdo allaahumma arzuqnii shahaadatan fii sabiilika wa wafaatan fii baladi xabiibika ilaahu aniga shahaado igu arsaaq shahaado inaan diintaada u dhinto oo gacan cadow aan ku dhinto ilaahu ii dhib yare igu arsaaqo igu deeq weliba beledka xabiibkaaga anigoo joogo ilaahu isii buu yidhi markaasaa lagu yidhi cumar ma madiinat almunawara oo daarulkhilaafa ah oo cadligii islaamku meel walba uu gaadhay miyaad shahaado adigu aad ku sugaysaa markaasuu yidhi ilaahay waa qaadir inuu isiiye buu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy cabdumuqiira binu shucba kii midiyaha iyo biraha u samayn jiray ayaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu isagoo salaadiisu fajar ku jira ayuu midi geliyey baa layidhi intuu gadaashiisa soo taagay markuu cumar dhulka ku dhacay ayuu yidhi ayaa i dilay ayaa midida i geliyey ii sheega markaasaa lagu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy waliid maaragtaan muqiira binu shucba addoonkiisii majuusiga ahaayee dabcaabudka ahaayee biraha iyo qolxadada iyo seefaha iyo gaashannada u samayn jiray kaabaad maaragtaane ku dilo isagiina waan haynaa markaasuu cumar yidhi alxamdu lilah marba haddaanan gacan muslim aanan ku dhiman oo nin majuusi oo mushriga gacantiisa maanta aan ku dhintay waataan ilaahay weydiistay buu ku yidhi waataan ilaahay weydiistay daadna cumar markaa u dheelmaday markaas yani u miyir daboolmay markaasaa si walba markaa loo taataabtana jidhkiisii waa dhaqdhaqaaqaya laakiin hadal ma soo celinayo waa amiirkii muuminiinta dardaaran baa laga rabaa wuu dhiig baxay dhakhtarrada casrigan maanta innagu aan haysanana isagu ma haysan innaka markiiba qofka markuu shil uu galo ambalaas markiiba la booday dhakhtar baa la geenayaa bal ambalaaska dhexdiisaa laga yaabaa haddii uu dhiig ka socdo markaaba dhiig joojin in loo sameeyo ambalaas dhulka socdana uu jiraa ku hawada socdana uu jiraa diyaaradaha waxaa jira iyakuna hawadaa maro oo lagu leeyahay waa ambulance waa la kireystaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu dhiw dhig baxay isagu nicmadan maanta innagu aan haysanay aalaadkan ilaahay noogu nicmeeyo dhinac walba ilaahay uu naga dhigay ma haysan iyaku zamankooga waa zamankii awrta iyo baqasha iyo dameeraha iyo lugta la adeegsanayey waa zamanka qofku hadduu helo hal wajbad buu cuntada cuni jiray waa zamanka qofku maaragtaanay hadduu aqalkiisa uu noqdo aqal cariisha oo maaragtaanay isaga uu qariya oo ilaahay ugu mahadinayo weeyaan zamankaasi markaasaa si walba loola hadla yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin nin baa yimid oo yidhi anigaa cumar kicinaya ii dhaafa buu yidhi asalaata yaa amiira almu'miniin asalaa yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin salaaddii baa taagan yaa amiira almu'miniin salaaddii baa gaadhay hal mar keliya cumar indhaha intuu sidaa u kala qaaday buu ku yidhi buu yidhi innahaa xaqun walaa xada fi lislaami man taraka asalaa salaadda waa xaq ilaahay nagu leeyahay qofka salaada ka tegayna diinta islaamka nasiibkuma le buuhi qofkaasi markaasuu anu ma tukaday markaasaa lagu yidhi rakacad baa tukatay laakiin rakacad baa kuu hadhan baa lagu yidhi rakacad baa kuu hadhay markaasuu xidhay haddana uu dhacay fadhiga uu jiifaa uu xidhay haddana uu miyir daboolmay uu soo kacay ma tukaday may ma tukan haddana uu ku celiyey ma tukaday haa waa tukatay baa lagu yidhi markaa buuhi alxamdu lilaahi aladii acaananii calayha ilaaha waxaan ku xamdinayaa salaaddaa inaan dhammaystiray igu caawiyey baa mahadla buu yidhi amarka ilaahay bal halka uu ka taagnaa iyo ka eega shahaadadu waa taas sidqu likhlaas cumar alfaaruuq ilaahay madiinat almunawar uu ilaahay shahaado ku siiyey marka qusuur baa ilaahay jannada muuminiinta ugu diyaariyey qusuur ragga muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka haweeney duqa nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaabay tidhi yaa rasuul allah islaan
yaa rasuulallah bal jannada iiga sheekay bay ku tiri jannadan mushtaqadu ahe shawqul janna marka iyadana ku jira marka abu nabigu ku yiri islaan duqa jannada ma galaysa buu yiri way naxday aqalkeedii bay ku noqotay ooyday marka abu nabiga loo sheego lagu yiri yaa rasuulallah islaantii heblaayo duqda ahayd ee jannada ku weydiisay ee aad ku tiri islaan duqa jannada ma gali doonto way ooyaysaa aqalkeedii bay fadhidaa nabi allow marka abu nabigu ku yiri u sheego oo waxaad ku tiraadaan iyadoo da'daas jannada gali mayse iyadoo inan yar oo 30 jir laga dhigay bay jannada gali doontaa ku dhahda buu rasuulku yiri inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin shaab qof noqonaya markuu jannada galayo adoo gaboobe jannada ma galaysid adigoo murugaysana jannada ma galaysid ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين با إلهي يدي البابك جنة مركي مؤمنين تو أي جوكسدان وحلي وحي أمراض قلبك كتعلق دورا حسدك إيا بغضك إيا ماركتان معصية جعيلك إيا غفلة إيا ماركتان عداوة إيا عرب بدندا صفاتك حنحنة ذميمة تموقتا إيا تداخلك لبضبا حلك البابك جنة قفك مؤمنك لك قرب يا جنة قفك وحو قال يا isagoo caafimaad qaba ayuu galayaa isagoo 30 jir da'diisa lagu soo celiyay buu galayaa isagoo maaragtaan qaniya buu galayaa isagoo loo bishaareeyay nolol daa'ima buu jannada galayaa ida dakhala ahlul jannati aljanna yunadi munadin bi anna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت والعياذ بالله مؤمنين تمرك الجنة أي قلان أدون قدو شيدي أعمال بالله مادن أعمال صلاة دي سيبو أركا يا وحي وقبتي أذكارتو سميبو أركا يا وحي الله إلهي وقد ياريي سنه تكن يوحو كهليبو أركا يا صدقة بحي وحو كهليبو أركا يا مسكين هدو حسي وحو كهليبو أركا يا جنة أيا إلهي تسنى يا نعيم تيدي مركز وقفك حنوسنا يا أفر شيء وقفك حصوصا geeridii buu xasuusan gabowgii buu xasuusan bogtaantii buu xasuusan baahidii buu xasuusan murugtii buu xasuusan xagga ilaahay baa dhawaaq ka iman doona oo la oran doona ahlal jannaw maanta laga bilaabo jannada dhexdeeda waxaad ku leedihiin nolol dhimasho dambe aanan ka dambayn insha Allah dhahada qolo insha Allah dhahada Allah inaga dhiga kuwaas adduunka waa la dhintaa Soomaa فقيركو ودمن غنيغو ودمن مدحدو ودمنayaan maalqabeenku ودمن dhalinyaradu ودمنayaan meel dhimasho taala see ugu raaxaysan ba inaad dhimataa miiska ku saaran be nolol waxaad leedihiin dhimasho dambe aan lahayn thumma caafimaad qab xanuun dambe ma jiraayo khalaas ما بكونيسان كادونك قفكو انت او ير yahay waxa laga yaabaa inuu caafimaad qabo laakiin 45 50 markuu gaadho hadee toole kolba balon ba soo dibcayo qofka aragii ba soo gaaban maqalkii ba soo gaaban quwadii ba soo yaraan kolba dhinac ba laga qaban markaas qofku is eego is sheegareynaya oo leeyahay dhiig bal iga baadha sokor iga baadha milix iga baadha cholesterol iga baadha maxay kale iga baadha usbaaraya marka qofka konton haduu gaadho hadee toole intuu dhalinyarada yahay qofku ma xasuusto waxa soo dhan laakiin 50 haduu gaadho wama fawqa 50 haduu gaadho hadee toole waxa imanaysa xilligii ay yiraahdaan waa inaad qofku xilliga is ilaaliyaa jannada dhexdeeda xanuun dambood ka baqaysa haba yaraatay ma bajiraba ma dhimanayaan mana bukoonayaan mana baahanayaan tan'amu fala tab'asu abada nicmada adduunka qofka laga yaabaa inay ka zuusho kii maanta faqiir ahaaba laga yaabaa bari inuu noqdo maalqabeen qaniya kii maanta qaniga ahaa waxa suuragal ah bari inuu noqdo faqiir kii madaxa ahaa ee ummadu daba yaacaysa laga yaabaa bari jeelka in loo taxaabo la xidho kii jeelka ku jira waxa suuragal ah in laga dhigo maaragtaan boqor laga dhigo tilka al-ayyaamu nudaawiluha bayna an-naas nolosha adduunyadu waa sidaa weeyaan waa sidaas وأنا نقول جبي جيك وده جورجور يسوي وين جورجورته علي بن أبي طالب قال له صف لنا الدنيا يا إمام علي
adduunka bal noo sifee baa lagu yidhi raggaasi adduunyada si fiican ba u yaqaaneen iyagu ma asifuhaa buu ku yidhi awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa ciqaab buu yidhi maxaan adduunyada ku sifeeyaa buu yidhi awalkeedu waa tacab qof kastoo adduunka jooga maanta wuu daallan yahay dhallinyaradu way daallan yihiin oo gabdhuhu way daallan yihiin oo waalidadu way daallan yihiin oo hooyo way daallan tahay oo ilmaha yar baa daallan oo kii taajirkaa daallan oo kii faqrigaa faqiirkaa daallan oo madaxdii baa daallan oo dadkii caddaa baa daallan qof nastay adduunka raaxays way ii gaadhay odhanaya muu jiraa waar ma jiraa ma jiro awaluhaa canaa awalkeedu waa tacab buuhi waa tacab qofku 20 jirka ilaa 40 jirka baa la yidhi waa 20 sano qof kusoo dameerka u shaqaysto tacabun wa aakhiruhaa fanaa aakhirkeeduna waa dhammaad ama adaa dhiman ama adoo haystee kaa tegaya kaa socon xalaaluhaa xisaab xalaalteeda kugu soo gashana waa xisaab baa daba taalle ogow xalaal hadday kugu timaado maalinka qiyaamaha waa la weydiin qofkan uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim min maalihi fiima anfaqahu waayna iktasabahu baa nebigu yidhi xadiis macnihiisu ahaa xoolihii halkay ka soo galeenna waa la weydiinaya qofka mu'minkaa halkuu ku bixiyena qofka waa la weydiin doonaa awaluhaa wuxuu yidhi xalaaluhaa xisaab xalaal bay kugu soo gashay waa la xisaaba ku daba taalle ogow xaaraanteeduna waa cuquuba daba socoto waa lagu ciqaabi man iftaqara fiiha xasan buu yidhi ninka adduunka dusheeda faqri iyo baahi la soo daristo uu murugoodaa faqiirku uu murugoonayaa waman istuqniya fiiha iftutina buu yidhi ninka adduunka dusheeda hanti iyo dhaqaale ilaahay ku siiyeyna isagana fidnadunbuu ku jiraayo ogow ma seexdo cidhiidh unbuu ku jira iyo walwal iyo walbahaar iyo stress oo waddanka isrogi lacagtu may kaa dhammaan shaqadaadu may hoos bay u dhici doolarkii baa kacay doolarkii baa dhacay subax walba baanku tegiyuu eegi lacag maxay taallaba odhan murug unbuu ku jiraa kaasina murug iyo naxdin nin taajiroo maalqabeena habeenkii ma seexda ninkaasi wuxuu ku seexdaa kaniin laakiin waashmaankiisa albaabka u ilaaliya waashmaan baad tirahdaan soo maha security xaariska bawaabka markuu iridda xidho ay baabuurtu soo wada gasho meeshaa yar albaabkaaba aqal looga sameeyey iska seexdaa weliba uu khuriyaa si fiican buu u seexdaa qurruf qarraf ninka maalqabeenka u wareegaa markaa habeenkii ma seexanayo dushaasaruu ku leeyahay aqal oo xataa ciyaalkiisa midba qol buu u sameeyey isaguna xagga sare u aqal fiican ka dhistay wuxuu leeyahay shanqar ma maqlo laakiin ma seexda ninkaasi habeenkii imaa xabuub buu ku seexan imaa irbad buu ku seexan siduu habeenkii markaa u wareegayo ila waa nin maalqabeenoo xisaab buu ku jiraa mogta xoolihiisii buu ka fikirayaa kanuu haddana ka fikirayaa kanuu u shuuraynaya kanuu eryayaa kanuu soo qorayaa halkaabuu xoole ka yaalin telefoon buu ku hadlayaa telefoon baa u soo dhacaya waxbuu ka jawaabayaa su'aalaa la weydiinaya ma seexdo maskaxdii baa dhalaashay laakiin wuxuu arkaa waashmaankiisii oo iska hurdo iska khurinaya uu yaabay haddana habeen labaad buu dul yimid isagoo khurinaya ajiib dadka fuqarada waa ajiib moogta ilaahay uu qeybiye nicmadda qoladan maal baa la siiyey laakiin raaxa ma haystaan qolo waxaad arkaysaa fuqara la yidhaahdo oo iminka xanuunka waaga dhaweetee koronaha ka soo qaad example waa mithaal gaban baan nii sheegi dadka ugu cabsida badnaa ayay haayeen lali sheega dadka gaaska yar haysta soomaa gaaska waa kuwa lacagta yar haysta kuwaasaa cabsi badan masaajidda kuwa ay ku tukadaan ilaa imika afkay wada xidhan yihiin fuqarada masaakiinta ee muruqmaalka ee maalintii iska xamaaliinta la yidhaahdo wax korono ka baqaya maad aragteen iyaga car maad aragteen ma jirin waddankan berigaa aad u dhex maro xamar baan joognay maalmaha adduunku diyaaraduhu kala xidhmayeen markaasaa diyaaradihii had ku timaadeen way istaageen garoonkii xamarna wuu xidhan yahay jabuuti way xidhan tahay halkaa way xidhan tahay dhulkaan iska marnay dhulka markaan marayna dadka hayjadaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama fuqarada masaakiinta waxa magaalada wareer iyo qayle iyo buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warkaa maba hayaanba
غنيga ninka maal qabeenka iyo ninka mansab maanta madax ahaaye meel fadhiyay labada ugu cabsi badan ee corona ka baqaysa waa labadaas fuqarada waxba kama baqan mid faqiir ay maxaa corona waxaan cunaan laanahay buule aan cunaa laanahay buule corona hadii alla arkila waa cun lahayn buule mid oo ka baqi ilaahay uu qaybiye moogta nicmada kuwan maal baa la siiyay laakiin cabsi baa lagu riday qalbiga mar walba way baqaan kan waa faqiir ma baqayaba wuxuu leeyahay maxaa ka baqi imika nin lacag yar wato oo meel suuqa dhex maraya oo cabsoon wuxuu leeyahay bal tuugtu ku dhac laakiin nin xalay aan casheeno maanta qadeen oo faqiira hadduu tuug dhex maraya muu cabsoonaya ma cabsoon muxuu leeyahay iyo kaaba baadan buu leeyahay aniga waxa cuna balaba ilaahay sidaas uu markaa bini aadamku ugu qaybiyay nicmadiisa lidaalika ninkan maal qabeenka habeenkii ma seexdo laakiin waashmankiisu iska seexdaa uu fiirsaday uu fikray ninkii wuxuu yiri malaha ninkan wuxuu la seexanaya waa faqriga ana waxaan la seexanana waa qinada Soomaha bal waan eegi isagu markaa ku jarrabaya waxa la bishaarka wuxuu siin jiray mesela $100 bishii $300 buu uga dhigay bishii uu yeeray maalintii lacagta la siinay uu yimiday qaado buu koro warqad buu ugu xidhay warqad buushadii buu riday markuu kala furay waa $300 wuxuu lacagta waa ay qaldanteen may kuma qaldamina waan ku gartay iska qaado buu kaydi halka buu iska gashaday miskiinka uu farxay markaa habeenkiiba markaa ninka maal qabeenku wuxuu eegaya bal ninka inuu seexday ee kalcaaw eeg oo dul maray awal 2 saac uu seexanay laakiin maanta 3 saac wali waa soo jeedaa ninkii uu fadhiyaa uu eega markaas uu soo jeedaa haddana 4 saac uu kor maray wuxuu arkaa ninkii oo xilligaas sii goglanayo sii seexanaya uu seexan waayay soo baarida haddana wuxuu dul yimid meelaha 5 saac wuxuu arkaa ninkii oo go'a huwadayo laakiin hoosta ka dhaqdhaqaaqaya markaa haddana 6 saac uu soo maro wuxuu arkaa ninkii oo badhida u fadhiya markaas maxaa ku fadhiisiyay wax kale ima heline lacagtii aad ii biirisay ayaan ilaa imika ka yar fikiraya islaanta maxaad ugu dartaa kan kale maxaad siisaa kan waa miskiina maxaad siisaa ciyaalka maxaad u iibisaa maxaad la hadhaa maxaad ku samaysaa waayahay wada iska seexo hay habeenkii oo dhan ninkii ma seexan waagii indhaha casaaday ninkii waa washman ilaa habeenkii inuu jiiftay haydo maalinkiina shaqeeye waagii markuu bariyay buu ninkii maal qabeenkiiba u yimid ninkii indhuhu casas yihiin oo albaabka furayo xidhaya markaasuu yidhi sheef labadaadii $100 ee dheeraadka ahayd iga qaada buu keenay waatan maxaa dhacay xalay kama seexan buu yidhi cadaab baad ku jirtaan buu yidhi cadaab aniga waxaan haystaa buu yidhi intaa yaraad siiso $100 baa masaariiftaydoo dhan waa isku fadhidaa buu yidhi xalay $100 waan ka jiifan waayey buu yidhi ninkii maal qabeenkii markaa maxaa u baxay waxaan qofka bini aadamka wareerinaysa waa adduunyada weeyaan waa meesha culimadu ay yidhaahdaan war hadba intay adduunyadu inoo biirto walwali walbahaar biyo murug baa inagu biiraysa hadba inta iimaanka iyo diinta iyo taqwadu ay noo biirtana raaxa inoo biiraysa cabdullaahi ibnu cabbaas radiyallahu canhuma ayaa odhan jiray qofka cibaadaysta ee ilaahay xidhiidh fiican la yeesha ee salaadiisu ay hagaagto ee cibaadadiisa ilaahay aqbalo 5 nicmadood baa ilaahay adduunka dusheeda uu ku siiyaa nuurun fil qalbi buu qalbigiisa ilaahay nuur buu dhex dhigaa wadiyaa'un fil wajhi wajhigiisana iftiin baa ka baxa wa quwwatan fil badani jirkiisana ilaahay quwad iyo xoog buu geliyaa wasi'atan fil rizqi arsaaqadiisana ilaahay baa u waasiyo u barakeeya wa mahabbatan fi qulubil khalqi khalqigo dhan ilaahay qalbigooda kalgacayl baa ilaahay u geliyaa shantaas nicmadood waxa lagu gaadhaa ee lagu helaa wax xiriirka ilaahay oo ku adkaada nuurun fil qalbi qalbiga nuur baa ilaahay ku gelin allah inoo geliyo allah inasiya nuurkaas nuurka waa maxay waxa culimadu waa basiiro waa indhaha qalbiga ilaahay qofka u furiyo wixii xalaalana wuxuu ku arkaa indhaha wixii xaaraana indhaha buu ku arkaa xaq iyo baadilka indhaha qalbigu ku kala arkaa khaaliq iyo makhluuqa farqiga u dhaxeeya indhaha buu ku arkaa adduunyada gaaban inay gaaban tahay adduunyadu iyo aakhirada weyniga badan la wuxuu ku kala arkaa waa indhaha qalbiga haddii ilaahay nuurka qalbiga uu ku siiyo taciishu calaa bayinatin caddaan baad adduunyada adoo dariiq cad baad maraysaa ma khasaaraysid wadiyaa'un fil wajhi wajhigiisana iftiin baa ka baxa buuhi iftiin allah inoo iftiimiya wejigeenna mu'minku waa cajiib
hadduu lacag hataa haysan ma walwalayo ma walbahaarayo mar kasta wajigiisa waxaad ka arkaysaa farxad iyo bashaashad yaxsabuhum aljaahilu aghniyaa min atacafuf waa sifaatkii asxaabta sifaatu saxaaba weeyaan in dadka magaalada madiina ku cusub ee remiyiga ee magaalada madiina yimaada markay arkaan Abu Hurayra iyo Abu Bakar iyo Umar iyo raggaas fuqarada muslimiinta ee muhaajiriinta bashaashada iyo farxadda wajigooda ka muuqata markay arkaan waxay isleeyihiin wala nimankan lacag ba halka joogaan walaakin ilaahay waxa uu leeyahay maaha waxa ka iftiimaysa lacage waxay wajigoodu la iftiimaya waxay leeyihiin tacafuf way dhowrsoon yihiin oo bini aadanka baahidooda uma sheegtaan baahidooda bini aadanka uma sheegtaan way qarsadaan habeenkii bay ilaahay u sheegtaan habeenkii saacadaha dadku ay hurdaan bay kacaan ya Allah baahidaasaan qabaa isii ya Allah ubadkii baan garan lahay ii hagaaji ya Allah nolosha xiriir igu noqotay ii waasic ya Allah inaan ku dhawaadaan rabaayo ilaahu albaabkan ku soo maray ii fur ya Allah raxmadaada waan u baahanahay in xariiso ya Allah hooyay iga bugtay ii caafi saacadaha rabbul aalamiin ku samada adduunyada uu imanayo uu leeyahay yaa waxay weydiisanayaan siiye ayaa toobadkeena toobadiisa han aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha haddaan kacnoon baahideena ilaahay u sheegano ilaahay baahideena isaga inoo daboolaya diyaa'un fil wajhi وصحة وقوة في البدن ابن عباس عبادة markaad maqaamkii la doonay uu qofku ka gaadho waxa ilaahay siiyaa buu yidhi jirkiisa ilaahay quwad buu geliyaa caqligiisa quwad baa ilaahay gelin fahmadiisa ilaahay quwad gelin jirkiisa ilaahay quwad gelin waxaad arkaysaa 100 jir 120 jir quraanka ku akhrisanay bilaa nadaarad oo kiyaala tiraada Soomaa 100 jir baad arkaysaa habeenkii ka hor kacay salaada leelka salaada kaaga soo horeynaya shaqeynaayo umada u khidmeynaya wasi'atan fi ar-rizq buu arzaqadana wallahu wasi'in buu yiri imaka inako arzaqada in leeno wasi'iyo waan jecelahay Soomaa asbaabta arzaqada lagu wasi'iyo ma taqaana waa cibaadada ilaahay adkaysan xiriirka adiga ilaahay niga dhaxeeyo una adkay bas ومحبة في قلوب الخلق خلق ودنا إلهي كالقعيل وقلبي قد كودقي مؤمنك والله جعل يحي لأن إلهي با جعل هذا إلهي بو رالق لي إلهي بو جعل هذا إلهي بو أماني إلهي بو أدوادي كونك إلهي با كتلي مركع إذا حب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له القبول في الأرض بالنبي يري إلهي أضون مرقور عليك النقضو جعل هذا جبريل بو يري وليه هبل واج جعل هذا رالي باك النقضو جعلو جبريل با جعلان بالنبي يري جبريل لما لايكتو دم بو كو أمر يا وليه أضون كإلهي بار عليك النقضو جعل هذا خلقك السماء كن ولو دم با جعلانا يا ثم قبول يدار الله دائما سقبولك ومعي خلقك أدوك الجوجو دم با إلهي أسخر وإلهي جعليسين سرت نولس waxa weeyaan Allah ku abuuray xiriir fiican la yeelo inagu dad badan sirta nolosha lacag bay ka raadiyaan shaqay ka raadiyaan dhoof bay ka raadiyaan tacliim bay ka raadiyaan qabiil bay ka raadiyaan masab bay ka raadiyaan may maaha sirta nolosha hadaad doon inaad heshid مفتاحك وإلهي حرير في عن ليالو بقدر خوفك من الله يهاب الخلق منك بولي سليمان وحولي وبقدر حبك لله عز وجل بقدر حبك لله يحبك الخلق وبقدر اشتغالك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك حد بين تدادق إلهي آد جعلاته أي مخلوق لك جعلانا يا حد بين تد إلهي آدق آد كبغضو أي مخلوق آدق كاهي بيسنا يا حد بين تد إلهي طاعت دي سيد دين ديسا آد نفت هذا كم مشغول سد أي مخلوق كلنا باهد هذا الله در باهد هذا كود بوليان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته walaalkaaga muslimka markaad u gargaaraysid ee gargaarkiisa aad ku maqan tahayna adigana gargaarkaaga ilaahay baa kugu maqan ogow bal fiirso walaalkaaga muslimka ee islaamnimadu niga dhaxaysa aad u gargaaraysaa oo ilaahay ajar kaga doonaysaa
waad u khidmaysay waxbaad u qabatay waad u shafaacad qaaday ergaad u noqotay ergo ya waad la socoto waad raacday meel baad u raacday muraadkiisii saad ula soo qomiso adigana baahidaada ilaahay baa kuu daboolaya ogow marka sirta noloshu waxa weeyaan ilaahay caza wajal xidhiidh fiican ula yeelano qalbiga wuxuu ku raaxaystaa waa ilaahay dikrigiisa khalqigu waxa ilaahay kugu saqiraya waa ilaahay taacadiisa waxa qalbigaada ku nuuraya waa ilaahay dikrigiisa waxa arsaaqada lagugu waasixiya waa ilaahay taacadiisa waxa maaragtaanay nolosha caafimaadka aad ku heshaa waa ilaahay taacadiisa cibaada inaku maanta waxa u haysanaa dad badan u haystaan cibaadadan islaamnimadu iyo diintu inoogu yeedhayso hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday zaka tahay hadday diin laga shaqeeyo tahay hadday diin dadka la bara tahay hadday diin la barto tahay haddii xijaab iyo astur la qaato ay tahay waxaan u haysanaa cibaadadu inay aakhiro waxtarkeedu ka bilaamaayo may adduunyadan aad joogto noloshaada yare gaaban waxay ku hagaagaysaa waa ilaahay taacadiisa xidhiidh fiican la yeela allah bas ilaahayna innaka u baahan jazaaka allah khayr sheekh allah akbar ilaahay innaka u baahan kun lii kama uriidu akunu laka kama turiid kitaabu طريق الهجرتين إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قصده وحكوشيغي نبي الله موسى عليه السلام مركو نبي شعيب أريغا وجريي دول وحو أريغا كل راعي ماركتاني ييغي درواغو كبدن يحي أريغا مركا لراعي أنا لما جيف سنكرو قيلي الله ذا مركا لراعي والله جيف سنكرا لكن أرجروه ما جيف سنكرو ويا دعوة أياك ضفيسا درواغا أياك قادنا موسى عليه السلام ودالي مركا deedna geed buu hoos fadhiistay baa la isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jiifsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe markaa nabi muuse u baraarugay ushiisiibu waaye ushii ila ulbuu sitaa mogta markaasuu arigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nabi muuse haysta calayhi salaam oo ariga neefka baal martaba u soo weecinayo ku soo celinaya markaasuu nabi muuse yaabuu sidaa u eegay waa dhurwaagu ariga uga baqay baa u soo ilaalinaya markaas la haatif dhawaaq buu maqlo lagu yiri kulli kama uriidu akunu laka kama turiid ya muusa sidaan anigu aan doonaya hadaad ii yeesho sidaad adigu aad rabtaan anaga ku yeelanaba ilaahay ku yiri sida rabbi doonayo hadaan yeelo sidaan inaku doonana ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshan maanta fahmi laanahay nolosha haddaad cibaadada ka dayi weyda macaankeega ma fahmi karaysid waad wareeri waad dawakhi adoo wareersana malakal mawdka ku iman ogow laakiin haddii xidhiidhka ilaahay aan adkaysanno oon iimaanka islaamnimada salaada cibaadada diinteennu ay naga noqoto maaragtaane dhaqan oo aysan naga noqon dhagaysi keliya oo diintu dhaqan ay naga noqoto waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galanaa janno dadka adduunka ku nool baa waa afar qayboodba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo jannu ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galaya kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galaya laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta jannu galaya ka afraad adduunka intuu jooga jannu ku jira maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galaya dadka adduunka ku nool waa afartaaba si kale haddaan u dhigo mid waxa weeyaan waa janno ku sug mid waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaaladay khusaysaa labana muslimiintay khusaysaa labada gaaladan horta inii macnaynaya dhagaysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyey dhaqaala ilaahay siiyey hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu ku dhacaya
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجنة الدنيا قلتها كافرك وكافرك هنتي لها لأن الجنة دي سواء معي هل كان أدونك أنتو جوغا وحو دونو سمين حبك حران ما وحو دونو عني وحو دونو عبي وحو دونو داون ماشو دونو مري سو دونو أفولي سو دونو أسعن عدو دونو أتقي وح هبا يراتي سو جوجينيا أو قبانا هبا يراتي مجرو شهوات دي سيادونك دوش يدوكو قدنا ياكاس مركا الجنة دي سيهال كوية نساقا بمعنى شهوات كيسي أدونك دوش يدوكو قدنا يا ويان وحو دونو سمين وحو دونو عني وحو دونو عبي داركو دونو حيران سو دونو تمها وحيران ماشو دونو تقي وحو دونو فولي سدو دونو وحلي هل كان ويان جنة دي سيساقا لكن مالين تود انت محاو دنبايسا حاودا بيسا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بإلهيد قال هذا ها عنان بإلهيد اسكا دافا اسكا عنان وها اسكا تنتام وها اسكا راحيستان وهدي ديلادنا حدكتو هدي ديلادو معي وحابان سميني وحابان سمين دونا وحابان قادني وحابان صوّدنا قلب علمي بان قادني معلومات كلام كينينا هرمر بان ادوكا كسو بيرينينا إلهي بان لو سينيا لكن وحا إلهي قدال دنبي سوغان دونان با إلهي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن با نبي محمد لقول لي هي هذا ندونك دوشي هذا يرغو راحينا كواس كدبنا وحي الله يبا هي وكو يمادو غيريدي با كو يمانس قف اجشي با كو دينين deedna maxaa ku xiga tamatuci adduunka dusheeda ay ku soo raaxaysteen hadda waxba uma tarin baa ilaahay way loobi doonaan kam labithum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al 'adin qala in labithum illa qalilan law annakum كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بنك قيامة مركز الصوت تاقان بل لو يدين لأورندونا أرلا لدوشيدي إمسات كسور نقاتين مركابي أورندونا مالين أما مالين بركين أو تمتع عدونك كسور تمتعين كرسور حاجتين مجرو مركا قال كثر وضع حيستا إيهانتي لها بمعنى جنة دي سوى هالكن جنة اللوجة وامحي شهوات دي سهل كانوا كبدنا يا وحو دونودن وحن نفس دي سؤال دونتو أردن هل كانوا مركا أقول سمينا يا مركو هل كان كل ما يستنى وحي إلهي فسوف يعلمون ما مركا أقول بيس كاس وكاس قال كلا بعد وقال كي وقال كفقير كا وقال لكن قال لمدي سفقر بأوديرو درب جيف ويان ما لها أبو خبر أنتو عبو دربية كدعاء adduunka dusheedii sidan uu ku yahay cadaab buu ku jiraa aakhira markuu tagana cadaabka weynaa buu galay wal iyad billah hadith waxa jira fa in ashqal ashqiya man ijtama alayhi faqru ad-dunya wa adab al-akhirah fi shu'ab al-iman buu ku sheegay imam bayhaqi rahimahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro wal iyad billah labada kale muslimiinta khusayaan waa mid adduunka dusheena cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhira tago insha Allah jannu gali ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsibu iskaga jira qaflad buu ku jira diinta dhinac uu ka haysta dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jira waxa maanta adduunka dhiig daadanaya oo dhiig islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeena Soomaaliya aan ka soo jeedno kulligeen Soomaali baan iska wadanahay waa dad isku aqeeda isku luqa isku madhab isku diin isku dal waa qoom kaliya ku nool wadankeena wadankan imsa qabiil ba ku nool imsa wadad ba ku nool ya sheekh dawri afartan Soomaa wax qabiil isku leeyahay ma aragteen ماهي لماذا إنكم مسلمين وشهادين إن القبيلة اسكو دمين
oo meel walba aad ka maqlaysaa mar walba meel dagaal baa ka dhacay oo yaa islaynaya reer xadiye iyo reer qaafa islaynaya ma sabab waa tarku diin weeyaan maadaama diinta sidii la doonaya aanu qabsan weynay cadaabkii adduunka ku jirnaa ogaada cadaabkii adduunka ku jirnaa in dad muslimiina oo ashahaadanaya dhiigooda ay isxalaalshadaan ay isdhacaan oo ay isboobaan oo ay isku xadgudbaan oo isxasdaan oo isxantaan oo isdhammeeyaan oo qofka kale dhiiggiisa u xalaashado maxaa keenaya waxa keenaya waxa weeyaan waa godobta diinta islaamka laga gala lagu dhaqmi waayey markii diintii la baran waayey la isku xukumi waayey laga shaqayni waayey lagu dhaqmi waayey la isku xidhiidhini waayey ilaahay jalla wa ala muxuu sameeyey markaa quluubteennii baa ilaahay markaas ku dhiftay وإنك أركا يا ودن كان دوري أفرتن قوم يدود بين يقول النول ولا قال الله هذا ليس مجرته نبض بالقوة النول يا إنك هنا نبض بالقوة النول نبض بالقوة النول الله أون أرزاقات كو هاي سنة أون أمن كو هاي سنة أون دين تاني سحر الرياضة أنا كو هاي سنة ودن كأني أكسو جدنا أيضا ودن كأنه بقول مسلم اسكو أفكري أي وديهنا عذاب أكو صعود عذاب كسوة قبيل كوا نوع من العذاب ويان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ابو النبي يقول أنا قد بدأ قال لما دبها وقول نقولين أبو رسول كويدي بعد بركي نكلا أو قورت كجر أو ديجي ناس على شتان هذا أركت أمة إسلام شيء نسبة شيء نيسا أو نبنيك كلا ديجي سو حلال شدي حديث قال النبي يقول شيء يا إسلام ما هو حاس قال لما دبها دب لو نقول الجاهلية دي أو كذا عذاب كمركا مسلمين الدين أنا كل من أي كجرام دقالك قبيل كمدة وحوتك كمدة قحا أيا كمدة أمد سديد الباب جهنم الله فري يقولك قال هذا أسس عطاء أيا كمدة وعذاب نوع من العذاب إنه مسلم كويل هذا ما أنت قولك إسلام كنا وضي متى الله أو تعليني متى الله أو دكتور في عن ملء أو نبت قلي متى الله أو أرزاقات متى الله أيه أرزاقات إلهي باهيا ولكن يسقوا حيري أرزاقات يورو بيت الله أمنك إلهي باهيا ولكن يسقوا حيري نبت قليد يورو بيت الله عافماتك إلهي باهيا لكن يسقوا حيري عافماتك وحويا لا يورو بي أمريكا بويا الله وحي إلهي لها أي أظن نسبة الصومة هذا له ووحي إلهي كابدا مركا ديقا dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa boqolkii 80 ama 70 mujtamacii inaga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii sii haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timid Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa miskiin nagu la tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajida u badnaayeen laakiin maanta xagga kale beerta loo batay xagga beerta ma taqaanaan xagga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halka bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu maaha raxmad marka muslimka diinta aanan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa laakiin aakhiro markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaallaa in shaa cadabahu hadduu doonana ilaahay waa cadaabi hadduu doono ilaahay waa u naxariisan taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa laakiin ka afraad baan u socdaa dhageysta waa kee waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa waa kee waa muslim mu'mina oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya oo diinta ilaahay ka shaqaynaya oo diinta ilaahay ku dhaqmay oo ummadda baraya diinta oo diinta noloshiisa ay ka muuqato muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno maalintuu dhintana jannadii weynayd buu gali doonaa insha Allah dhahada yaa u diyaar janno ku sugan u helo insha Allah dhahada janno ku sug ilaahay hayna siiyo ibraahim al-adham rahmatullahi alayh
ayaa laga sheegay isagoo 3 maalmood aan cunto cunin ayuu oran jiray law ya'lam al-muluku wa abna'uhum ma nahnu fihi lajaladuna bis-suyuf wa nin 3 maalmood cunto aanan helin oo aanan cunin oo masaajid iska i'tikaafsan mar ummadu cilmiga baraa mar isaga culimada wax ka barta mar ilaahay buu bariyaa mar dadku ilaahay xaqiisa ugu yeedha 3 maalmoodna waa qatan yahay waxa uu leeyahay dhageyso boqorada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro haday ogaan lahaayeen seef bay kaga qaadan lahaayeen buu ama jadal macaanka aan dareemay raaxada meesha laga raaxaysto maaha dhar fiican oo jirka loo xidho aqal fiican oo la dhisto gaari cad oo la wato magaazaan weyn oo la furto may raaxadu waxa weeyaan waa qalbiga oo ilaahay jalla wa ala ku tacalluqma oo garataa waxa adduunyada ka dhacayo dhawaa qadar ilaahay adigana wixii ilaahay ku qadaray mooyaane wax kale kugu dhicmaayaan wixii ilaahay ku qoray mooyaane wax kale heli maysid waa inaad garataa ilaahay jalla wa ala qof kasto adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya wax kale heli maayo marka janna Allah inooga dhiga adduunka janna ku sugan insha Allah dhahada Bilal al-Habashi radiyallahu anhu ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataa markaasuu dhaha kala qaaday maxaad leedahay waa dumar iska qalbi jilicsan oo markaa waa iska barooratay naaq baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo waxa tiraahdaa waa farxataa maanta waa farxad iyo dhabu yiri markaasay ku tiri maxaa ku farxa waadiga iga dhimanaya sakaraadkii baad wuxuu gadan nalqa al-ahibba muhammadan wa sahbahu anigu baritole qofkan la kulmi ma taqaana muhammad alayhi salatu wassalam iyo saxaabadii baa la kulmaya buu ka yiri yakoo faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen lana noloshana adduunyada iyagu may dayicine waa ka faa'iideysteen kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen kumay shahawaadkooda kumay raacine ahkaamta ayay raaceen adduunyada may camirine aakhiraday camirteen aakhiradii markay hagaagsadeen nolosha adduunyaduna way hagaagtay markaas inagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oo qurxino waan dhisnay hadana dadkii maanta raaxo ma hayaan qof kasta waa calacalaya maanta fa ilaahay jalla wa ala hanu soo noqono han toobadkeeno khaasatan dhulkana ilaahay baana keenay wanagu abad ku dhalateen baan u maleynintiina badane ilaahay baa dhulkana inna makansiyo inna dajiye Soomaa hinde amni ma ku haysanaa arsaaqad baad ku haysataan diin baad ku haysataan dacwad baad ku haysataan nabadgelyaad ku haysataan Soomaa hinde hadaba asbaabta waxa soo nicmada ay noogu daa'imayso waa maxay quraanka ilaahay ku sheegay alladheena immakannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakah وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور با إلهي تبارك وتعالى كوا دولك آن مكان سنين دولك آن دجنو أسبابتا دولك أي كم مكان سدان وحاكمدا صلاة دي أوغان با إلهي هذه دولك لا أتكتمدي نوال بوانوغنا نوال بميل بوكيمدي gobolladan waxa ka iman Keeniyada ku yaala Soomaalidu ay leedahay ama dalkii baa laga yaabaa in laga yimid oo loo shaqeeyay halkan hadii Ilaahay dhulkan ina keenay oo dadka dhulkan joogana ma aragtaan ay dhib inoo geysan oo nabad iyo barwaaqo aan kula noolnahay waxa la doonayaa xaq baa la inagu leeyahay Ilaahayna abuur xaqiisa han ilaalino oo inagu ka muslim ahaan qof bila salaada dadkeena lagu arkin qoys walba qof bila salaada lagu arkin أقاموا الصلاة بإلهي صلاة دي أوغان بمعنى إساقنا واتكنا يا ويان أوقات يديبوا إلى لنا يا أقونت يديبوا لي هاي داتك كلانا وأويا رايا وحور هذا صلاة تكنا إن مريا وآتوا الزكاة نوي بحيان بإلهي ما القبيلنا دينا حداد مسلمين تين يقولون والمقالة فقراء ضعفاء مساكين مستحقين تو الزكاة هذه الزكاة اللي سين لها قف باهن ومسكين وفقير لغو ماركن لأن تريد إنه ما بدو مسلم كسو مقالة كنول وحاو نقول لها غنب ونقول لها باهي بني آذا ككاف طويب ونقول لها وشرف له وأمروا بالمعروف دادك وانا قفر أيا دادك الله نوشهين
ra'sul macruuf ibn Abbas wuxuu yidhi waa tawxiidka dadka laa ilaaha illa allah baa loogu yeedhayaa dadka islaamnimada la gaadhsiinayaa dadka waxaa la gaadhsiinayaa tawxiidka loogu yeedhayaa wixii wanaag ee sharcigu faray baa la farayaa waraasul munkarna waa maxay yanhawna canil munkar waa maxay munkarka dadka ka reebaysaan waxaa la yidhi raasul munkarna waa shirkiga waa gaalnimada kufriga iyo gaalnimadan ummadda waan ugu digaynaa oo leedhahay ka daayo ka toobadgan ilaahay uga soo noqda walillaahi caaqibatu lumuur afartaa khasladood bay culimmadu leeyihiin وأسباب التمكين ويان حتى هذي دعوة دولة إني نقطه دولة إسلامية وشريعة الإسلام قد طبق إيسا دعوة استاجي ميسو بل مسلمين تو أين دعوة كشغيان وناك فريدة هي حمك كريبدة وأين شغدا نقطة الشغد جوكتا والدولة دولة كشغيين إيسو ومسلمين تدمانا يكوض الشغيان وأسباب تدول كإلهين نقوم مكسين يو يدول كإلهين نقود دجيو كبر كوبينو أمنقو نكو زيادة يو برواقضنا حق السماد يدول إلهين نوغا كينايو إبراهيم الخليل عليه السلام مركو هاجر سو قاداي إسماعيل uu ka keenay quds shariif ilaahay ay noo xoreeyay oo afar buuro dhexdooda uu keenay waa meesha Makka ay ku taalo oo bilaabaad oo bilaabiya oo wehelna aanan ku haysan halka markuu keenay buu Jibriil ku yiri xaaskaaga dhaadhici way ku ka dhaadhiciyay faraskii ilmaheedana u dhiib waa u dhiibay baadiye biyo waxa uu haysan si uu siiyay ka noqo buu ku yiraahdo qudus ku noqo waa dhul qabow buu ka keenay oo beer leh oo camiran oo qurux badan oo dooga oo dadkii ehelkeedu ay joogaan meesha uu keenana waa Makka waa afar buurood dhexdood samada mooyaan xataa dhulka lama arka baa leeyay wadi lagu dhaadhacayo qofku markuu ku dhaadhaco baa leeyay buurihii imika waa la baabiyay bariga buuraha uu qofku arki jiray samada maahayna meel kale qofku ma banaana baa leeyay halkaas nabi Ibraahim lagu yiri xaaskaaga haajarana dhaadhici baadiye biyo waxaad wata siiyo u dhig ilmaheedana u dhiib kana noqo adigu yo hana soo daymoonin hana la hadlin baa lagu haday kula hadasho oo sii jeest markiiba hajara hadasho Ibraahim uu istaagay maalka baad nagaga noqotoodna dhigtay annaka madaxu u ruuxay maxay ka dhigan tahay weeyaan nacam way fikirtay waa nebigu amar alla mooyaan amar kale kuma socdeen malaha waa la amray de الله أمرك بهذا هل كائن هذا أني إلمها يقولنا الدكتور نقدر نقطه ما إلهي باكو أمري إشارة إلى نعم إذن لا يضيعنا بكتر مربع هذه أمر الله هل كأن نقول كنتون نقدر تكتي لما تضيع أي أسرع نقول فلان نسكت صعب بكتر هوين إذا سيله وتقنا كورما هوين كان وحال الربع ذاتك تاريخ ضد الذهب كإلهي وكربي حديث صحيح النبي قال انه غا ورمي ان اد ku dayataan oo ilaahay ku xidhnaataan oo muuminiin noqoto gabadhu guri joog noqoto oo dhasheeda diinta ku tarbiyadayso Ibraahim alayhi salaam marka uu dhaqaaqay khalaas jabal abi qubays burta leeyahay markuu gadaasheeda uu ka wareegay oo gartay hatta haduu soo daymoodana inuu san arkaynin ayuu xagga beedka ilaahay soo qaabilay baa leeyahay markaas في سورة إبراهيم واكا إلهي قرآن كويري شيخ عيدي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الكابو كدعي سوجستي يا الله reerkayga halkaas aan dhigay buur halka beedkaaga kaabada hajar al-aswad ka meesha beedka ilaahay xurmada laha inay tahay nabiyada dhan baa yaqaana duufaankii zamankii nabi nuux adduunyada ka dhacay ayaa daboolay baa la yiri wayla nabi kasto adduunka yimaada baa la yiri halka uu soo qasan jiray oo ilaahay ugu dhawaan jiray ku soo cibaadeysanayay qaarkooda kutubtu waxay dhigaysaa ummadahooga marka la halaago Makka intay yimaadaan bay ku cibaadeysanayeen دهنا هالكاب يكون دمنيين إبراهيم عليه السلام وعود هالكاسان دقي هاي ما شاس الزراعة ملا ولي بنا بير ملا وردول كلولو ينكسن بيا ملا ربنا ليقيموا الصلاة إله واحد كدك تقوى قويس كهالكا عن كجت تجي كوا صلاة أوجي إله كدك بيقول صلاة هو الدين صلاة هو عبارة عن الدين بعلماء دليهين
qofka diintiisa meesha laga gartaa waa salaada weeyaan salaadu waa asbaab altamkiin ibraahim calayhi salaam qoyskiisii waxa ilaahay ka dhigay qoys salaada oogaya dhulkii baa ilaahay dejiyay kana waa ka maka noqotay marka inakana dhulkan ilaahay baa na keenay hayaanan ku qancin maaragtaan cibaadada kaliye een culimadeena han isgarab taagno oo dacwada han isku taagno oo qofka muslimka gabadha muslimada iyo inanka muslimka intuba diintan xilba inaga saarana insha Allah inakuna diinta dadaalkayga hanu guntano ha ka shaqeyno oo dadaalka diintu wax adag ma aha adigu waxa laga rabaa gabdhuhuna gabdhaha inay ku dadaalaan raguna ragga inay salaadii khayrka ugu yeedhaan ubadkeena inaan madaarista keeno culimo ka dhigno oo ubadkeenu inaka ayna dhaamaan agayabaad wadaad diin baranin oo adduunyo un raari habeen ka shaqeynaysid ilmahaaga khadka ka weeci khadka hore aad soo martay ka weeciyo xagga sharciga u weeci xaafid ha ku noqdo caalim ha ku noqdo nin macallin ajriya lan macallin quraan buu ahaa arab jabaqu lahaa markaasa ardaydii marka alifka u bilaabay ninka arab jabaqada le ra ma karo ra markuu yiraahdo ha tiraadidba wuxuu yiraahdaa la markaasuu qoraa ra buu qorayaa sabuuradu ku qoraa ra markaasuu leeyahay tan waa maxay waa ra dhahada la dhahada ila isaga la buu leeyahay ma kare ra markaas ardaydu way yiraahdeen la markaas anu arab jabaqan qabaaya idhaamo oo la dhahada markaa meel la u meeydadaan waad fahamtay maanu malayn ubadkeenu inaka hayna dhaamaan sidee inagu dhaamayaan xagga cilmiga u weeci culumaan u baahannahay fuqahaa baan u baahannahay muhaddisiin baan u baahannahay khutaba baan u baahannahay ducaad baan u baahannahay haddaad aragto mujtamac diinta baranaya oo masaajida dhisanaya oo rag iyo haween xagga masaajidka iyo madrasada u yaacaya oo diinta ilaahay dadaalkayga kullu leh haddaad aragto mujtamacaasi hore u socdaan ogaada haddaad aragto mujtamac dhinaca xiirtay oo gabdhahoogina surwaal xidheen oo odayadiina maqaaxi fadhiyaan qabyaaladii dalku ku dime ka sheekeynayaan waxaad aragtaa mujtamacaasi god buu ku sii dhacayaa god ilaahay buu leeyahay mujtamacaasi dadka waddankan aan kula nool lahayna akhlaaq wanaagsan ma tusayna insha Allah dhahada maxaan tusayna limaada akhlaaqda maxaan u yiri salaada aad tukato ninka gaalku ma arkaayo way miskiidka ma soo galaayo soonka aad sooman tahay ma arkaayo waa sir soonku adoonka ilaahay buu ka dhaxeeyaa zakada aad diibayso male isagu xaqba uma leh oo dadka muslimiinta u xaq leh ee sinfigii quraanku sheegay xajka hadaad tagtana xajka intaan la gaadhina waxaaba taala meel la yiraahdo halka ma dhaafi karan inaan muslim ahayn tayib arkaan alislaamki gaaladu midna ma arkayaan laakiin gaalku muxuu arkayaa bal sheeg muxuu arkayaa dhaqankeen say ula dhaqmaysaa markaa dad baan u sheegtay ka waran adoo muslim haddaad ballanta baajisa ka waran adigoo muslim haddaad dadka agtiisa ku xamata ka waran adigoo muslim haddaad xaqiisa ilaalin weyda ka waran adigoo muslim ibraahim al-adham raxmatullaahi calayh ayaa nin yahuudiya u yimid baa la yidhi nin oo ay wata walibana markaa buu ku yidhi ibraahim maadaa lagu yidhaa haa anaa la yidhaa buu yidhi su'aal baan ku weydiina ha ka cadhoona ka jawaab hay sheeg maxay tahay wuxuu adiga iyo aygayga midkee fadli badan buu ka yidhi nin aad isku diin aad ahayn haddii su'aashaa ku weydiin lahaa ka waran anu waa feedhi lahaa soo sidaa ma hadde sheekhi uu fikiray saas uu fikiray aygii buu eegay isagii baa eegay ninkii buu eegay markaa buu ku yidhi aakhire markaan tagay ilaahay lay hor joojiyo haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyo jannada la ii diro aygaaga maalinta anaa ka fiican buu yidhi laakiin ilaahay kama yeelee banka qiyaama haddii lay joojiyo oo kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro maalinka aygaaga iga fadli badan buu ka yidhi ninkii gaalka uu yaab wuxuu wallaahi akhlaaqdaas waa akhlaaqdii nebiyada buu diinta islaamka rabaayo ashaada ay qabta buu ku yidhi dhaqan ba ummadda lagu bedela dhaqan akhlaaqdana qofku ma helo ilaa qofka iimaankiisa iyo diintiisa la dhisa mooyaane lidaalika insha allah inaan masaajida camirno dacwadda iyo diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha allah oo diinta aan baranay een maqalay culimadu habeen iyo maalin nagula hadlayaan inaan dhaqan u bedelayaa u diyaara ilaahuna waafaji dhahada allahna nagu anfaco